السلام عليكم كلانتي وعن داوديال halkan waa Sadaq Soomaali official muuqaalkeena waxa ku qaadigi doona qayb kamid ah taariikhda magaalada Markacadey ee gobolka Shabeellada Hoose Marko waa magaalo dhacda qorox u dhaca magaalada caasimadda ee Muqdisho qiyaastii magaalada Muqdisho waxay u jirtaa 90 kiiloomitir waa magaalo madaxda gobolka Shabeellada Hoose waa gobol qani ku ah beeraha iyo xoolaha magaalada Marko waa magaalo xeebeed oo waxa bari ka xiga badweynta Hindiya dadka ku nool magaalada waxay caan ku yihiin dhaqamo u gaar ah magaalada Marko waa magaalo qadiimi ah oo dalxiiska ku habboon dadka ku nool magaalada waxay leeyihiin ciyaaro sanadle ah sida shiribka heeleyda beerleyda iyo kuwa kale oo fara badan magaalada waxa kale oo caan ku tahay soo saaridda dharka alindiga oo aad loo xiiseeyo dhinaca waxbarashada magaalada waxa ay leedahay dugsiyo quraanka kariimka lagu barto iskuulo iyo jaamacado cimilada magaalada aad ay u macaan yihiin xilli walba oo la soo galo waxay leedahay buuro qurux badan oo soo jiidasho leh xeeb loo dalxiista haddaba daawade ma jeclaan lahayd inaad mar uun gaarto magaalada Markacadey cuntooyinka ay caanka ku tahay waxa kamid ah malaayga kabaabka sambuuska bajiyaha iyo waliba kuwa kale oo badan waxa kale ay leedahay oraax caam ah taasoo ah Markacadey minal aw Cusmaan martidii moodo munaafaq waaye magaalada Marka waxay ka kooban tahay 3 xaafadood oo kala ah Horseed Wadajir iyo Howlwadaag waxa kale oo jira xaafado yar oo hoos taga 3 xaafadood oo kor ku soo xusnay Horseed waxa hoos taga xaafadaha Buulajaam Buufow iyo Lumbardi halka ay xaafada Wadajir hoos tagaan xaafadaha Saraha Bayturaas iyo Owbaale Howlwadaag waxa hoos taga xaafadaha Ruusiya oo Basiibo iyo Sheekh Abarone inta ay joogo barnaamijkan waxa hadlaynay taariikhda magaalada Markacadey hadii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo bir oo subscribe leh Sadaq Soomaali ka dhigo wehelkaaga